waxaan rabaa gudoomiye arintan siday ahayd baa loo abaaray oo ah labada qodob oo ugu muhiimsan oo ah wixii la sameeyay inay sharci daraacayeen sida darteed waxa muhiim ah waxa la yiraahdaa caanadaas ay dabadooda la qabtaa talooyinka la soo jeediyay kow in marka ugu horeysa baarlamaanku go'aanka lagu daro qalbi dhagax dawladda Itoobiya inay warqad baarlamaanku go'aan u diraan lagu soo celinayo waa qodob maadaama xaq darradaas dhacday hal la soo celiyo waa in la yiraahdaa ama cid bixisay oo xukuumadda ay tiraahdaa la soo celiyo haddii wax naga dhaxayaan oo daris aanu nahay oo la istixgelinayo maadaama khalad dhacay la soo celiyo ninkaas waa kow qodobka labaad waxa weeye cid dame oo Soomaaliya ama muslima inaan la dhiibin cidii dhiibtaana ay criminal tahay dambiilayaal yihiin taasuna waa inay noqotaa go'aan baarlamaanku soo saaro waayaan dama waa loo bartay dad masaakiin oo Soomaaliya in la dhiibo waxa jirta oo xaqiiqo ah intaan ay meesha ku qoreen oo dadaalka guddigu waliba waxa si dheer shariicada islaamka lama dhiibi karo qof muslim looma dhiibi karo qof kale oo aan muslim ahayn